cabdiraxmaan warsame waxaa lagugu soo eedeeyey qodobada 434 ugu weyn yahay oo dilka ah dil in Caaisha dilkeedii ka qayb qaadato dishay kufsi marxumadda loo geystay qodobkaasna waa lagugu soo eedeeyey sidoo kale afduub laakiin waxaas dhan waxaa isku ururiyey qodobka dilka dembiga ma gashay mise ma gelin ha maya laga rabaa yes waa gashay yes dembiga waa gashay si dadban baan u galay waana ku dhamaystirayaa suga qof hadli kara ma jiro waxaad gudub samaysa oo waxayna ka ballan wax ka bedeshaa banaanka la geenaya maxkamaddu ixtiraamkeedu waa ixtiraam gaar ah cabdifataax waa maqlaysaan ma miir qabtaa aad iyo aad maskaxdaadu ma tamaam way تمام بقولك بقول سما وحو قرتي دنبغا inuu galay waa maqlaysan dhammaan shacabku soo maqleen aamus hadalku waxaan ka rabnaa markaa faahfaahin baan rabaa inaan waxaan ka rab ya wa وقل اوكي aamus istaag adigu istaag mana fariisanaysa istaag amar maxkamadood ma fariisan kartid waxaan rabnaa inuu cabdifataax naga siiyo su'aal shan ku dina waxda cabdifataax maadaama ilaahay uu fududeeyay ba dambiga aqratay iyo wixii ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta meel ay joogaanba muddo tiro badan geliyay dhibaatooyin iyo hawl iyo mucjiso ay noqotay gabar yar dilkeed jarjarideed kufsigeed dambi inta laakiin la galo maxkamadda horteeda maanta ka qiratay waxaan ka rabaa sida dambigaas u gashay cidda kula gashay waxa sababay iyo meesha ku gashay fursadaas haysta ummadda u sharax maxkamadda u sharax waa mahadsantahay garsoorayaasha xafiiska xeer ilaalinta qareenada shacabka iyo ciidamada amniga salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu su'aal baa idin weydiisay mudana guddoomiye si degan oo aan ka fiirsaday baan kaaga jawaabay eedeymo badan baa aniga la ii soo jeediyey ma hal eedeyn xafiiska ilaalinta wuxuu ii soo jeediyey anigu kufsi baan galay xafiisku xeer ilaalinta wuxuu ii soo jeediyey kufsi wuxuu ii soo jeediyey dil wuxuu ii soo jeediyey afduub wuxuu ii soo jeediyey khalkhalgelin amni soo sidaa ma ahayna xareed okay anigu kufsi baan galay mudana guddoomiye شرحت كده كوفسيغا إساء وقشي وعدة كل قشي واحد دل oo aan galayna ma jirto waakum maqalay kufsi baa gashay yaa kufsatay Aisha kufsatay soos subhanallah noo sharaxaad naga sii su'aalo ii weydii kufsigu noocu ahaa yaa kala qayb qaatay maxaa sheedan baa kulay sabab u ahay maxaa khasbay waxa inaad geysatid anigu waxa weeyaan kufsigaasi waxa iga dhaadhiciyay igu qanciyay inaan galo goobjoogna ka ahaado Cabdishakuur Maxamed Dige Cabdishakuur Maxamed Dige subax buu dhacay gurigiisuna ka dhacay 2 saac subaxnimo ilaa 2 saac bar Aisha ma soo afduubteen Aisha isaga afduubay isaga gurigiisa geeyay anigu waa uu soo wacay kaliya guriga lagu afduubayana Cabdishakuur Maxamed Dige guriga ayaa degan waxaa degan isaga iyo hooyadiis aduu mara degan may see ku ogaatay inuu Cabdishakuur soo afduubay Aisha oo uga qayb qaatay dadan ogeey aniga isaga ii yeeray yiri waan ku baahanahay darisna waa ahayn iska soo horjeedo soo jawaab ka dhigan ninka hadalkiisa waa maraysan sidoo ku yeeray telefoon miya mise soo looganay soo waxa xaaladda ku leena kan waan is aragnay anoo gurigeyga hor taagan waan ku rabaa buu yiri anoo gurigeyga hor taagan waan la bistay waan baxay gurigiisa ugu tagay oo qol irid banaan oo aniga iga soo horjeeda waxaan u tagay isagoo qolka ku haysta Aisha waana xaqiiqo waxaan ka hadlay anigu cid i khasabtay cid waxa weeyaan iyahan jabtay cid isa sabtay inaan xaqiiqada ka hadlo midna ma jirto waxaan ka hadlayaa wayse qabaa waa xaqiiq ilaahayna igu ogay waxa weeyaan waxaan rabaa inay maxkamaddu sidaa ii fahanto Cabdishakuur isaga
isagaa ii yeeray gurigiisaanan ugu tegey dabadeed waxaan u tegey isagoo qolkiisa ered bannaankaa ku haysta caaisho una xirxiranta muddo dood dheer ah kadib iyo cabsi fara badan oo aan dareemay wuxuu igu qanciyey wax fudud oo dhammaanaya inay yihiin waxaa weeyaan shaydaan baana ii kasbay anigu kufsi baan sameeyey goobtii faldambiyeedkana waan ka tegey caaisho oo nool waxyaabaha igu qanciya waxaa ka mid a in uu sii dayn doono markay hawshu dhammaato wixii intaa ka dambeeyana wixii aan mudano iyo se wax noqdaan la arki doono muddo saacada ah kadib goor gabalkii uu dhacay wuxuu ii sheegay in ay ka fursan weyday maadaama uu anigii iga da'weyn yahay in badan inay ka fursan weyday inuu sharaftiisa ilaaliyo inaan ka dhalin yaraysanayo haddii berri waxaa dhacaan in anigu aan ka soo kaban karo xagga da'da ama waxaa weeyaan xagga sharaftaba isagu wuxuu yidhi waan kaa da'weynahay haddii arrintaas ay soo bixi lahayd dhibka ugu weyn iyo sharaf darrada ugu weyn anuu igu dhici lahaa kufsiga gabadha dabadeed go-aanka weyn oo aan qaatay baa wuxuu yahay markii aad iga tagtay buu yidhi inaan dila caaisho anoo keligeeya gurigiisaan uga tegay mudana guddoomiye aniga iyo isaga iyo waxaan ahay nin eedaysanaa oo aan hadda goobta fadhin hala fariisto dhaqdhaqaaq ma jiro ninka wixii xaalad amniga ciidamada ammaanka u xil saaran abukaata xabiib fariiso adoo maxkamadda aadan maxamuud may si fiican ninkaa dhalinyarada ahaa raas ahaan iyo qabiil ahaan baan wadaagnaa dadkana waan isugu badinaayo dugsigii saraan wada qaadanay waxbarashada gaalkacyuuna degan yahay yes waana reer gaalkacyood waa kaa waxaa weeyaan cabdishakuur waa yaqaan saddexdii naas labadii naas iyo cabdishakuur saddexdii naas way cidda dembiga gashay mudana guddoomiye waxaa weeyaan aadan da-aadda aniga hal sanaan ka weynahay ama 2 sano wax noocaasa markii aan qiyaaso markii aan qiyaaso da'diisa ma garat walaalkay meesha waxaa keenay baa waxay tahay inaan isku DNA noqonnay iyo inaan isku hidaraac noqonnay taasna waxaan ku mari karaa waxaa weeyaan shareecada iyo kitaabka anoo ku dhaaranay xaqiiqada aniga iyo aadan kufsigaan ka qayb qaadanay maya isku mar baan ka baxnay guriga aniga aadan isku xilli baan ka baxnay markii aan kufsiga geysanay cabdishakuur wuxuu nagula taliyey waxaana inay kufsi keliya noqon doonaan waxaa weeyaan xaaladdu markay kala degtana uu gabadha sii dayn doono sidaasaan go-aan ku gaarinay waan ka tagnay anigu magaaladan aaday aadan magaaladan isku sii raacnay waa kala tagnay hal mar hal mar in badan buu nooga sii horreeyey gurigiisay taalla gabadha yes علاقات انتهى لك بين كده حقيقي وريها المسافه لك انتهى لك بسجلان ما غد ذنبيه نوعا ما هربش wax dambi aan wada galnay ma jiro kufsi hore aan anigu galayna ma jiro kufsi ama dambi weligay laamaha amniga imaysan qaban saldhigna kuma baryin magaceyguna oobi ma gelin cabdishakuur laba guri oo iska soo horjeedaan deganahay dariiqun baa noo dhaxeeya qiyaastii ku qiyaasan 12 mitir 12 talaabo waxa weeyaan waxaan kaloo cadaynayaa walaalkay inuu dambiga berri ka yahay anoon lagu khasbin anoon wax kale la ii sheegin midna xaqiiqadan sheegaya dhalinyaradi qaarankay duuxii dalkaygiyo dumucdaya xoogii aan ku gaaranaynay dhalinyaradi qaarankay duuxii dalkeeniyo dumucdaya xoogii aan ku gaaranaynay
fayuulay dhegaysta dimmadaya haweenku ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa inta dhimir fayuulay dhegaysta dimmadaya haweenku ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa dig waa barbaarsho waa dhalaan gargaadsho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee dig waa barbaarsho waa dhalaan gargaadsho waa kuwii dhabtoodiyo naagu qaaday dhaabarkee waana dhidibka kaabo rabka dhinac istaago qof kastoo dhasigana ma dhexlaayo guushe waana dhidibka kaabo rabka dhinac istaago qof kastoo dhasigana ma dhexlaayo guushe inta dhimir fayuulay dhegaysta dhibmagaya haweenku ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa inta dhimir fayuulay dhegaysta dhibmagaya haweenku ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex nool dadweynaha waa inaan ka dhicinaa inta dhimir fayuulay dhegaysta dhibmagaya haweenku ka dhowra kuwa dhaqanka baaslo ku dhex